kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhamaantiinba soo dhawaada barnaamij wareedkayga waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladaha dalka Itoobiya qodobada saaxiibayaal aad daawan doontaana waxaa kamid noqonaya warbaahinta dawladda federaalka ah ee Itoobiya oo soo bandhigtay roodhi iyo sidoo kale sahay kale oo military oo ay ku sheegeen inay ka carareen TPLF haddaba maxaa sababi karo in TPLF xitaa cunooyinkooda ay ka cararaan saaxiibayaal warar arrimahaasi ku saabsan idin haynaa sidoo kale waxaad barnaamij wareedkayga ku daawan doontaan madaxweynaha ismaamulka Tigreega ahna hogaamiyaha kooxda TPLF ayaa la sheegay in deegaanada amxaarada ay uga baxeen istiraatiijiyad military sidaas oo kalena ay sameeyeen xilliga markaasi darjiga qodobada kalena saaxiibayaal waxa kamid noqonaya shacabka Tigreega ee ku nool caasimadda dalka Itoobiya oo si rasmi ah u taageeray maamulka Abiy Ahmed isla markaana ka soo horjeestay Tigreega qodobada iyo qodobo kale saaxiibayaal ay kamid yihiin wararkii ugu dambeeyay xaaladaha dalka Itoobiya ayaan barnaamij wareedkayga idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaan idin leenahay soo dhawaada halkan barta YouTube ku leenahay Baniga Production waxaan idinka codsanaynaa subscribe inoo saartaan muuqaalka aan laga share dhaadaan qaybta hoose comment-kana aragtidiina aad nagu wadaagtaan maasantii saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa warbaahinta dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa waxa ay baahisay muuqaalo iyo sidoo kale sawirro ku aadan deegaanadii ay kala baxeen ama marka ay kala wareegeen TPLF waxay sheegeen in deegaanadaasi ay yihiin deegaano istiraatiiji ah oo horay gacanta dawladda uga baxay sidoo kale inkastoo muuqaaladu ay qaybo badan baahintooda sidoo kale magaalada noloshooda ay loogu kurgalayay haddana waxay si gaar ah muuqaalo duubayaashu ay xoogga u saareen roodhi iyo sidoo kale sahayga ay isticmaalayeen xoogaga TPLF ee magaalooyinkaasi kaga baxay magaalada la yiraahdo Goner ay waxay ka soo baahiyeen roodhi iyo sidoo kale waxaana la sheegay inay kaliya cunadaasi ay ku nool yihiin kooxda TPLF oo dagaalyahano ah isla markaana ku sugan waqooyiga dalka Itoobiya dhinaca kale madaxweynaha ismaamulka Tigreega ahna hogaamiyaha kooxda TPLF wuxuu sheegay in deegaanada amxaarada ay uga baxeen istiraatiijiyad military sidaas oo kalena ay sameynayaan xilliga markaasi darjiga ama xilli roobaadka inay dib soo rogaal celiyaan oo ay halgankoodii meesha ka sii wadaan isku dayayaan shacabka Tigreega ee ku nool caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa ayaana waxay dhigeen barnaamijyo waaweyn oo laga soo horjeedo kooxda TPLF ee Addis Ababa ku sugan waxay sheegeen inay barnaamijyada si wadi doonaan ilaa inta macquulka ah madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamuud Cagjarna waxa uu tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ama kamid noqon doona ciidamada gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay ciidamadaas si gaar ah si toos ah ugu biiri doonaan dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ayaga oo difaaci doono dalkooda sida hadalka u dhigay madaxweynaha Mustafa Cagjar halkaas uu khudbad ka jeedinayay sida aad la socotaanba waxa halkiisii ka sii socda dagaalka galbeedka Itoobiya ka socda kuwaasi oo labada dhanba ku dagaalamayeen guula mid kasta dhankiisa sheeganayo haddaba waxa saxaafada Tigreega wareysiiyay madaxweynaha Tigreega Debretsion Gabra Mikail waxa uu najeediyay khudbad aad u dheer waxaana kamid ahaa waxaanu bedelnay qaabkii dagaalka u wadnay annagoo qaadanay istiraatiijiyad cusub cadawgaynu wuxuu markaasi naga jaraa dhanka bidix wuxuu naga jiraa dhanka bidix iyo midig wuxuuna si toos ah u bartilmaameedsanaa doonaa goobaha cadawgaynu ku sugan yahay annagoo adeegsanayna xeelad cusub dagaal maadaama jilac markaasi ugu dambeysay waanu soo qaban doonaa cadawgayni maadaama uu jabay waxay geesanaynaa falal wuxuushnimo iyagoo diyaaradaha droniska shacabka aan waxba galabsan ku duqeynaya si uu niyad jabin shacabka Tigreega ah ay ula kulmaan balse ciidankeena geesiyaasha way ku kalsoonaan karaan cid kastana waa iska falkaani kuluglena waxaynu horkeeni doonaa sharciga Dr. Abiy iyo amxaarada ayaa sheeganaya guule isdaba joog ah inay ka gaareen furimaha dagaalka maalmihii ugu dambeeyay waxayna soo bandhigeen rooti qallalan oo ay ku sheegeen in ciidamada Itoobiya Tigreega ay ka carareen markasta saaxiibayaal xaqqa guuleysta waxay soo muuqataa in Itoobiya ay xaalad cabsi ah lugaha la gashay taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Suudaan ahna hogaamiyaha golaha militariga ee dalka Suudaan oo lagu magacaabo Al-Burhani ayaa waxa uu sheegay asaga oo ka hadlayay dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya iyo sidoo kale Suudaan u dhaxmaraya waxa uu sheegay in Itoobiya ay dhul baaxad leh ka haysato Suudaan waxa uu sidoo kale hadalkiisa si raaciyay in Suudaan dhulka laga haysto Itoobiya ay ka haysato xal wada hadal ah lagu dhameyn doono sidoo kalena waxa uu hadalkiisa ku soo daray oo ku sii daray ama uu sheegayba inaan lagu xalin doonin xiisad dagaal oo labada dal ah xuduudda labada dal ee dariska ah ee Itoobiya iyo Suudaan toddobaadkan waxa ka socday rabshado la xiriira suuhdinta labada dal oo labada dhinac waxa dhaxmarayay dagaal adag waxayna isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan kusimaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka sidoo kalena ah wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya
ayaa waxa uu la kulmay madaxa bangiga adduunka u qaabilsan dalka Ethiopia Mr. Demek ayaa madaxa bangiga adduunka ee Ethiopia uga mahad celiyay taageerada ay labada garab markaasi la garab taagan yihiin Ethiopia waxay ka wada hadleen labada mas'uul ayna isla soo qaadeen kor u qaadista iyo kobcinta dhaqaalaha dalka Ethiopia oo sii qiimeeyay tan iyo markii dagaalada ay ka qarxeen dalka Ethiopia kooxaha TPLF ayuu sheegay madaxa bangiga adduunka ee qaabilsan Ethiopia inay markaasi dhaqaalaha wadanka qaybta ugu weyn deegaanadooda laga soo saari jiray sida daraadeedna ay dawladda diidan yihiin waxa uuna markaas oo hadal qaaday u qaabilsanaha bangiga adduunka ee Ethiopia inay waajib tahay inay heshiiyaan labada dhinac dagaaladan ay joojiyaan si dhinacyadu markaasi ay wax iskula wadaagaan dhaqaalaha wadankana dib loogu kobciyo waxa uu sheegay in haddii taas ay dhacdo uu bangiga adduunka uu markaasi dhaqaale baahsan u ballan qaadayo dawladda federaalka ah ee Ethiopia balse waxa uu shuruud kaga dhigay inay markaasi la heshiiyaan TPLF oo ay dagaalada joojiyaan maadaama ay noqdeen qaswadayaal doonaya inay dalka burburiyaan dhinaca kale ciidamada militariga Ethiopia ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Mr. Abiy Ahmed ayaa kooxda TPLF waxa ay ka xoreeyeen deegaanada lagu magacaabo ama magaalooyinka lagu magacaabo Mehelmada Jaffa Harbu Makoy iyo deegaanada ku xeeran ciidamada difaaca Ethiopia ayaa kooxda TPLF oo deegaanada ay haysteen laga qabsaday ugu baaqay inay laamaha amniga iyo shacabka isku dhiibaan haddii ay isku dhiibi waayaanna ay tallaabo adag oo aan naxariis lahayn ka qaadi doonaan sida xafiiska warfaafinta dalka Ethiopia lagu sheegay qoraal ka soo baxay qoraalkaasi waxa uu daabacay sheegashada guushan ay gaareen ciidamada federaalka ah ee Ethiopia iyo sidoo kale kuwa markaasi Tigreega isla markaana ay Tigreegu iskaga bixeen deegaanadaasi ay la wareegeen ciidamada federaalka ah ee Ethiopia magaalooyinka lagu magacaabo Mehelmada Jaffa Harbu Makoy iyo deegaanada ku xiran waxay deegaano istiraatiiji ah u ahaayeen todobaadii ugu dambeeyay ciidamada Tigreega waxayna sal u ahaayeen ama markaasi marjaci u ahaayeen weerarkooda ay ku ahaayeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Ethiopia balse weerarkaasi ayaa waxa uu muuqday mid dhicisoobay oo dhinacyadu ay ka quusteen inay sii wadaan dhinaca kale dawladda Ethiopia waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay gudoomiyaha kooxdii la magac baxday jabhadda xureynta shacabka Bishanguli oo lagu magacaabo Hidir Maxamed Cali waxa uu ahaa ama uu ku magacaawna asaga oo sidoo kale hogaaminayay si toos ahna u abaabulayay koox la magac baxday jabhadda xureynta shacabka Bishanguli waa jabhad degan waqooyiga dalka Ethiopia mudooyinkii ugu dambeeyana waxa ay qayb ka ahayd qowmiyadaha ka soo horjeesanayay dawladda federaalka ah ee Ethiopia isla markaana waxa ay kamid ahaayeen 9 kooxood oo horay magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka ugu saxiixday heshiisyo iskaashi oo lagu doonayay in Abiy meesha looga saaro gudoomiyaha jabhadan ayaa lagu qabtay tuulada la yiraahdo Galamanso ee degmada Manje ee deegaanka Bishanguli gudoomiyaha jabhada la qabtay ayaa lagu qabtay iskaashi ay sameeyeen shacabka deegaankaasi iyo hay'adaha ammaanka waxaana la qabtay hal qori oo kilaash ah 2 qaanadood 5 bambada qarxada ah hal qalabka isgaarsiinta ah iyo labiska dariiska Suudaaniska ah waxaana la sheegay inuu isu dayay inuu ku dhunto halkaasi wasaaradda waxbarashada dalka Ethiopia sidoo kale waxa ay sheegtay isla markaana ay gebi ahaanba xidhay dhammaan dugsiyada sare ee dalka Ethiopia muddo 7 cisho ah sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada dalka Ethiopia lama ogo sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in dawladda federaalka ah ee Ethiopia ay albaabada iskugu dhifato guud ahaanba iskuulada sare ee ku yaala magaalooyinka Addis Ababa iyo sidoo kale magaalooyinka kale waaweyn ee dalka Ethiopia waxaana xusid mudan in dagaalo qaraar oo lagu magacaabay dalbadbaadin ay haatan Ethiopia ka soconayaan waxaana dagaaladaasi horkacayo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia saraakiisha ayaa mar isku soo hadal qaaday inay gebi ahaanba iskuulada albaabada isku dhiftaan kadibna ardayda iyo sidoo kale dhalinyarada wax ka bartay iskuuladaas iyo xitaa macallimiintaba qoryaha loo dhiibo dagaaladana la geliyo maadaama wadanka sida la sheegay lagu soo duulay dhinaca kale
General Page Dabele oo wax laga weydiiyay dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia iyo in lagu xalinayo nabadayn ayaa ku jawaabay sidaan aniga nabadayn iyo wada hadallo shaqadayda ma aha shaqadaydu waa inaan dagaalamo siyaasiyiinta ay u yaalaan arrimahaasi oo kale aniga dhankayga cadow baa i hortaagan guud ahaan saaxiibayaal wanaag inta barnaamij wareedka ay ku saabsan xaaladda dalka Ethiopia waxaan oo wanaagsan daawada meel walba oo aad joogtid ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay duqeymaha xooggan ee ka dhacay magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega ciidamada dawladda Itoobiya oo isaga baxay saldhigyada hore u qabsadeen iyo wararkii ugu dambeeyay guulaha laga gaaray dagaalada ka dhacay dhanka Amxaarada banaanbaxyada waaweyn ee ka dhacay gudaha magaalada Addis Ababa midowga musharaxiinta Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho iyo natiijada kulankooda war-saxaafadeed ay soo saareen ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa qaybaha dambena waxaan ku eegi doonaa barnaamijka basaasidda sirdoonka Israa'iil ee Pegasus oo lagu weeraray dalka Mareykanka iyo xogihii laga helay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda qodobadaas oo idil ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka ku soo dhawo mar kale maracadda show ka mid noqo saaxiibada nagu xiran kadib aragtidaada qodobka ku soo jiita aad baad u mahadsan tahay haddii aan ku hormarno wararka naga soo gaaraya magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega ayaa waxay sheegayaan in duqeymo xooggan ilaa gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay ilaa waa berigii saaka ay ka dhacayeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Maqalla diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa duqeymo xooggan oo isdaba jooga ka fuliyay xarunta gobolka Tigreega ee Maqalla afhayeenka jabhadda TPLF dhankiisa waxa uu sheegay diyaaradaha droonka inay saacadii ugu dambeeyay ay dul taagnaayeen magaalada Maqalla isla markaana duqeymo ay ka geysteen fariisimo dhowr ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka iyo sidoo kale goobo dad rayid ay degan yihiin sidoo hadalka u dhigay dowladda federaalka Itoobiya guula ayay ka sheegatay duqeymo iyo weeraradii ugu dambeeyay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Tigreega waxaana dhinaca kale saraakiisha ay sheegeen in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku mashquulsan yahay hogaaminta dagaalada ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Amxaarada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo labadii maalmood ee la soo dhaafay warbaahinta aanan ka soo muuqanaya inuu ku mashquulsan yahay kulamo la qaadashada qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo sidoo kale ka mid dhalinta sidii loo adkeyn lahaa goobihii ay natiijo ahaan ku guuleysteen ciidanka ammaanka ee dowladda federaalka Itoobiya isla markaana ay ka qabsadeen jabhadda TPLF dhinaca kalena sawirro la soo bandhigay waxay muujinayaan dhismayaal dad rayid ay degan yihiin oo duqeymo xooggan ay ka dhaceen kuwaas oo ku yaala bartamaha magaalada Maqalla sida jabhadda TPLF ay baahisay telefishinka Tigreega ayaana laga baahiyay sawirrada iyo muuqaalada muujinaya in duqeymahan ay ku dhaceen qaar ka mid ah goobaha ay dadka deegaanka deganaayeen waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa arrintaas insha Allah dhinaca kalena ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxaa lagu warramayaa inay baneeyaan qaar ka mid ah deegaano yaryar oo ku yaala gobolka Amxaarada sidaas waxaa xaqiijiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jabhadda TPLF oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in ciidanka dowladda Itoobiya ay isaga baxeen ilaa iyo 3 deegaan inkastoo aan la xaqiijin deegaanada rasmiga sidoo kale ma jiro dowladda Itoobiya wax war ka soo baxay oo ku aadan macluumaadkan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu u muuqday inuu ku dhiirigelinayo dadka Itoobiyaanka ee qoriga qaatay baaqiisiina ajiibay waxaana Itoobiya uu ku tilmaamay dal cajiiba isla markaana waxa uu sheegay inay soo bandhigeen awood aan la qiyaasi kareynin isagoo fariintaasi u muuqanaysa ugu yaraan inuu u dirayo wadamada reer galbeedka waxaa intaasi uu sii raaciyay Itoobiyaanka naftooda ayay u hureen difaacidda dalkooda waa markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha Itoobiya qoraal Twitterkiisa uu soo dhigo ku dhiirigelinayo dadka deegaanka fariin ugu diraya wadamada reer galbeedka tani markii dagaalada sida tooska ah uu kaga qayb galay dhinaca kalena banaanbaxyo ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya banaanbaxyadan waxaa lagu warramayaa inay dhigaan dadka Tigreega ah ee qoomiyad ahaan ka soo jeeda halkaas kuwaas oo degan magaalada Addis Ababa waxaana tani ay noqonaysaa dhaqan hore u sameyn jirtay jabhadda TPLF oo ugu yaraan dadka Itoobiyaanka ah ugu baaqi jirtay inay banaanbaxyo ay dhigaan si dadkooda oo ay isku deegaan ama isku ehel yihiin ay u cambaareeyaan waxaana lagu xasuustaa jigjiga iyo banaanbaxyadii kala duwanaa ee ka dhici jiray oo ehelka ONLF ay argagixiso ku tilmaami jireen markii banaanbaxyada ay dhacayeen kaabarta ayaa kaabadiyey ayaa ka dhacday oo hadda Addis Ababa dadka Tigreega ayaa waxa ay jabhadda TPLF ku tilmaamayaan sida urur argagixiso oo kale iyagoo ku baaqaya in xaaladda la qaboojiyo qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno Itoobiya dagaaladu waxay u muuqanayaan inay ka qaboobeen sidii markii hore ay ahaayeen sababtoo ah waxaa soconaya istaraatiijiyad iyo waanwaan la doonaya dhinacyadan in la isugu soo dhaweeyo laakiin ma cadda inay isku soo dhawaanayaan oo qoriga caaradiisa ayay ku kala adkaan doonaan macluumaadka kale haddii aan eegnana
wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa iyadoo soo xiganaysa ilwareedyo kala duwan ee shaacay ka qaaday in ugu yaraan 9 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka in la jabsaday taleefanadooda gacanta iyadoo la adeegsanayo barnaamijka Pegasus oo shirkadda NSO ee Israa'iil ay horumarinta ku samaysay. wakaaladdu waxay ku warrantay iyadoo soo xiganaysa ilwareedyadaas inay ku tilmaamtay xoog ogaal inay u yihiin in la jabsaday taleefanada shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan dalka Uganda, gaar ahaan kuwa ku shaqada leh arrimaha bariga dhexe. mas-uuliyiinta shirkadda Israa'iil laga leeyahay ayaa dhankooda beeniyay inay jiraan cadeymo muujinaya in barnaamijyadooda loo adeegsada jabsiga taleefanada wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaha ka tirsan. kooxda Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in marka laga soo tago baaritaanka madaxa bannaan ee ay furtay inay la shaqayn doonaan hay-ad kasta oo dowladeed oo ay qusayso ayna siin doonaan xogta buuxda ee u baahan in la helo. sidoo kale wargeyska Washington Post waxa uu baahiyay in shirkadda Apple ay ku wargelisay 11 diblomaasi Ameerikaana in taleefanadooda gacanta la jabsaday bilihii la soo dhaafay. dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa war ay soo saartay ama ay warbaahinta siisa waxay ku sheegtay inaysan xaqiijin karaynin in la jabsaday taleefanada mas'uuliyiinta, balse waxa intaasi ay ku dareen inay si joogto ah u qaadayaan tallaabooyinka lagu hubinayo in la ilaaliyo xogta. sidoo kale afhayeen u hadlay golaha ammaanka ee qaranka dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay xaqiijin karaynin wararka sheegaya in la jabsaday taleefanada shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. si kastaba afhayeenku waxa uu muujiyay walaaca uu ka qabo in maamulka madaxweyne Joe Biden uu u baahan yahay inuu ka hortago khatarta barnaamijka wax lagu basaasay ee shirkadda Pegasus, kaas oo la sheegay inuu halis ku yahay ammaanka shaqaalaha Mareykanka. intii lagu guda jiray bilihii la soo dhaafay barnaamijka wax lagu basaasay Israa'iil ee hormarisay Pegasus waxa uu la kulmay duufaan dhaleecayn ah iyo cadaadis kadib markii warbixinada saxafiyiinta ay muujiyeen barnaamijkooda in loo isticmaalay in lagu basaaso 14 madax dowladood iyo boqolaal saxafiyiina. sidoo kalena maamulayaasha shirkadaha waaweyn ayaa la rumaysan yahay in barnaamijkan lagu basaasay oo loo adeegsaday barnaamijka Pegasus. qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno xubnaha midowga musharaxiinta ayaa kulan 2 maalmood wuxuu kaga soconayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxay kaga hadlayeen arrimaha doorashooyinka oo ay dhaliilsan yihiin sida ay wax u socdaan. kulankooda iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaa warbaahinta la wadaagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan ku dhex jirnaa oo noo socda kulamadii golaha midowga musharaxiinta oo uga tashanayna ayatiinka dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. waxaa maanta lagu soo biiray gudoomiyihii hore ee baarlamaanka mudane Maxamed Cismaan Jawaari iyo ra'iisul wasaarihii hore dalka mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. runtii waxayna qayb ka yihiin wada tashiyada oo golaha midowga musharaxiinta la yeelanayo dheergaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. golaha midowga musharaxiinta waxaa ka go'an siday hadafkooda awalba ahaa dalka inay ka hirgasho doorasho daahfuran, hufnaan leh, natiijadeena dadka Soomaaliyeed ay ku wada qancaan. saan hore u sheegnay siday doorashooyin ku bilowdeen maaha sidii saxda ahayd, waa si boob maaragtay bareer ah ay ku bilaabatay. saa la socotiin waxaan ka soo saarnay qoraal cad iyo mowqif cad ayaan ka qaadanay. waxa aan darsayna maalmahaana waxaa ugu muhiimsanaa inaan fiirino khiyaaraadka ama optionskan hor yaalla oo wax lagu sixi karo, lagu toosi karo, wixii hadda inay sii socdaana lagu istaaji karo. mar kastana annaga waxaan u duurxulaynaa midka danta dalka iyo dadka ay ku jirto oo sida ugu fiyoobida badan, ugu maaragtay dhibka yar oo qaranka iyo dowladnimada iyo arrimaha masiirka dalkaba ugu fiican inaan ka fikirno. degdeg ma jiro runtii, laakiin dadka Soomaaliya waxaan u caddaynaynaa annaga waxaan mudnaanta siinaynaa in waxa la hagaajiyo, la joojiyo, la isku yimaado, laga wada hadlo. Soomaalidu hadday isku timaado waa heshiisaa, taasaan annaga mudnaanta siinaynaa. taas macnaheeda maaha in opshanada kalena ay miiska ay ka qaadan yihiin ma aha. opshanada dhan annaga waan darsaynaa, waxa dalka danta iyo dowladnimada iyo qarnimada ku jirtaana ku dhaqaaqaynaa. taasaana ugu muhiimsan inuu golahan ku wada joogo dadka Soomaaliyeedna oo kala tashado. dadka Soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay say noo garab taagnaayeen ugu garab istaagaan, nagu aaminaan inaan ka shaqaynayno danta dalka iyo wanaagga halka uu ku jiro. waxaa laga yaabaa qaar inay degdegsan yihiin, waxaa laga yaabaa qaar inay dahsan yihiin, laakiin annaga dhexdaan soconnaa wax allaale iyo wixii dalka dantiisa ugu jirtaanan hadduu Ilaah yiraahdo aan ku dhaqmaynaa. ayadaanan aan noo ballan hadduu Ilaah yiraahdo. waxa dacayadaha ama tashwiishka ama waxa socdaana runtii
waxa weyn oo hadeertaan laga soo qaad le malaha goluhu waa wada joogaa taladiisana wuu ballaarinayaa waxaana noo ballan ah in wixii dalka danta iyo dowladnimada iyo qarnimada ku jirta aan ka shaqayno mudnaantana aan siino wadajirka iyo dowladnimada iyo inuu sarreeyo sharciga iyo inay mudnaanta yeelato in doorasho laysku raacsan yahay oo aan boob ahayn ay dalkan ka dhacdo waxa laalay wixii boob iyo xaaraan ah oo aanan dowladnimo ku dhisayn in la istaajiyo waayo waxaan isku ballansanay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkii falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maracadda Show waa naga intaa macluumaadkan kan xigay intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo midda kale oo aan rabaa shacbigu inay fahmaan waxa weeye dawlado iyo hay'ado aad u tiro badan ayaan doonayn Soomaali inay xasiloon hesho Soomaali inay midowdo Soomaali inay qaran noqoto Soomaali inay hore u socoto aan doonayn badroolka laga shaqarinayo dawlado badan oo anagu xataa ehelno oo carabno ah ayaan rabin badrool tiro badan Soomaali inay soo saarato sababtoo waxa way kooda qiimihiisa hoos u dhacaya askariga ajnabiga wuxuu qaataa $200,500 askariga Soomaaliya $200 buu qaataa macaaninka dawladaha soo dirsanaya oo mushaharadaas askartooda u helaya maraaday ka yihiin Soomaaliya xasiloon hesho waa may wayahay qaybaha dambe barnaamijkeena inuu soo gaadhnay xubnaha mucaaradku hadda aan ka hadlayno dad baa waxay ku eedeynayaan in ay yihiin dad ka soo jeeda guud ahaantood magaalada Muqdisho Soomaaliyana way ballaaran tahay ma muuqataa in mucaaradku oo magaalada Muqdisho ka soo jeeda ay cadaadiskii ku hayaan magaalada Muqdisho kaliya oo xisbiyadoodii iyo siyaasadoodii aysan diyaar u ahayn in gobolada kale ay ka qayb galiyaan oo ay siyaasadoodii ballaariyaan maxaan anagu qabaa ku soo boolay arrintan xaaji Maxamed Yaasiin baa ka hadlay waxaanu hadday tahay shakhsi wax xisbi oo meeshii ka jira ma jiro ummaduna waxay xisbiga la jaan qaadaa markii uu jiro xisbi magacaaban multi party system jira one man one vote lagu soo korteeyay markaasaad moodaa tixgelinta intaas laga leegtay laakiin waxaad moodaa wali in yagleel iyo leeleel ay ku jiraan dadkaan hadda aan aaminsanahay mucaaradka inuu hadda yahay fardi shakhsi inuu yahay baan aaminsanahay laakiin isu yimid oo fikrad ku madoobay marka anigu waxaan aaminsanahay qofku hadduu deegaankiisa ka hawlgalo kolle meel buu ka hawlgalayaa waxyaadayna uguma jeedo mana aaminsana legitimacy sharci ahaan inuu leeyahay inuu xisbi yahay balse markii xisbi dhaco ay ka hawlgali karaan meelaha kale dee waxaan moodaa aragtay aan markaas in arrintii xisbiga ahayd oo weyneyd oo multi party systemka ahayd in maaragtay qofkaas ku hawlgali karo dee Soomaaliya kolle xisbiyada intaa la eeguma noqonayaan shakhsi waxay noqonaysaa wax kooban oo dadku markaa gidigood qof walba choicekiisa ku rabo uu galo marka runtii aanu ma bixinsanayo balse waxaan aaminsanahay dee inaan lagu magacaabin arrintaa shakhsiga xisbi sharci aysan ilaa lagu magacaabin baan aaminsanahay loo arag qof wax doonaya maanta xaaladda joogtana hawshiisu ku xiran tahay inta xalka aynaan firin waxaan xaaji Maxamed Yaasiin baa su'aal weydiinayaa xaaji Maxamed Yaasiin sidee dadka loogu celin karaa inay wax doortaan oo iyagu ay go'aansadaan cidda hogaaminaysa shiro waxa weeye wax waliba hogaankay ku xiran tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hoggaan buu adduunyada u magacaabay oo insaanku uga dhigay intuusan wax kalaba intaan bani'aadamku adduunyada imaanba hoggaanka ayaa ummadda khayrka ku hagaajin kara ama shar u keeni kara isaga ummadda barwaaqo iyo nabad gaarsiin kara isaga magaratay muxuu ahaa hadduu dariiqa xun raaco ummadda qaranjab iyo hanjab iyo ku keeni kara hal qodob oo saaxiibkay Dr. Cabdiwali hal midah waxaan oran lahaa ciidamada imaanaya oo leeyahay waxa weeye ciidamada muxuu ahaa badbaado qaran wixii in qabiil ay u noqdaan oo dadkii ay fowda ay meeshii dalka galiyaan yaa bilaabay weeye waxa bilaabay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday baa bilaabay markii la xurmeyn waayay dastuurka
markii shareecada lagu dhaqmi waayey markii midnimada ummadda Soomaaliyeed muxuu ahaaytay la kala dhantaalay markii madaxweynayaashii hore wadanka muxuu ahaa wax kasta ka soo noqdaane xurmadoodii la dhaawacay oo leeyahay ma duuli kadaan ma socon kadaan gudihooda lagu weeraray hodheeladii lagu weeraray naftu ay u timi markii siyaasiyiintii mucaaradkii askartoodii la laayay oo maanta meydkoodii iyo meelay ku aasan yihiin aan la aqoonin markii dowladnimada loo isticmaalay muxuu ahaaytay shakhsiyaad doonistooda inay dalka sii haystaan oo ku sii amar taagaleeyaan haddii wixii waa qabiil weeye oo wali waxaan ku jiraa 4.5 kaasaan ku jiraa askartu wali waa qadaa'il bay u kala qaybsan yihiin darajaadka waxa loo kala qaadanaya qabiil baa loo kala qaadanaya hadda reaction-ka imaanaya markaa muxuu yahay weeye markii ninkii madaxda ahaa oo dowladda ahaa oo hoggaanka lahaa oo la sharfay oo la dhaariyay oo ummadaas magaratay la rabay inuu marxaladda ay markaa ku jirto inuu ka saaro marxalad wanaagsan gaarsiiyo markuu isagu dib ugu soo noqday caruurtiisa isagu uu bahal ku noqday cunaya hadda dadku inay difaacaan bay markaa noqonayaan dowladnimadii iyo electionkii iyo wixii la sugayay multi-party systemkii iyo cadaaladii markuu isagu burburiyo haddee hanjabkaasi iyo niyadjabkaasi reaction baa ka imaanaya ummaddu waxay rabtaa mustaqbal bay rabtaa 90% dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo ma haysato shacbiga majority-goodana waa iyaga shaqo ma haystaan jaamacadu ka soo baxay intaasoo sana lagu soo tacabeelay subaxda uu soo qaato shahaadada meel uu tagayo oo ka shaqo galaya ma jirto waxa u furan oo kaliya waxa weeye inuu maqaayadaha iyo meelaha iyo baryootan uu galo ama uu badda ku dhinto oo badda lagu xabaalo marka waxa weeye dadkii rajadii baa ka xumaatay waxay iska noqotay dowladnimadaba warshad lacag lagu sameeyo bay noqotay midda kale oo aan rabaa shacbigu inay fahmaan waxa weeye dowlado iyo hay'ado aad u tiro badan ayaan doonayn Soomaali inay xasilooni hesho Soomaali inay midowdo Soomaali inay qaran noqoto Soomaali inay hore u socoto aan doonayn badroolka laga shanqarinayo dowlado badan oo annagu xataa ehelno oo carabno ah ayaan rabin badrool tiro badan Soomaali inay soo saarato sababtoo waxa way kooda qiimihiisa hoos u dhacaya qaar badan baa hay'adaha ku shaqaysta amaan darrada ku shaqaysta oo lacago fake ah iyo muxuu ahaa xumaan kale iyagu meesha ka faa'iidayaan ka samaysanaya kumaan kun askareed baa la keenayaa dalkii oo intaasoo mushaahara ka qaadanaya askariga ajnabiga wuxuu qaataa $1,200 askariga Soomaaliya $200 buu qaataa macaaninka dowladaha soo dirsanaya oo mushaharadaas askartooda u helaya maraaday ka yihiin Soomaaliya xasiloon hesho waa may kuwa lacagta fake ku bedelanaya lacagaheennii muxuu ahaaytay mooskeennii iyo kalluunkeennii iyo waxeennii ma waxay doonayaan Soomaaliya xasiloon ilaa $4 bilyan baa lagu qiimeeyaa kalluunka Soomaaliya sanad walba laga qaato oo laga xado $4 bilyan dowladaha ka faa'iidaya maraaday ka yihiin Soomaaliya inay xasiloon hesho waa maya yaa lagu shaqaysanaya way marka oo xasiloon darrada keenaya waa Soomaali oo number 1 u yahay madaxweynahooda oo ra'iisul wasaarahooda iyo kuwa magaratay mucaaradka oo lacagaha dibadda ka soo qaadanaya iyo askarta qaarkood lacag la siinayo waxa soo dhan waxay ka wada shaqeynayaan Soomaaliya sidii u burburi lahayd Soomaaliya sidii amaan darro ugu dhici lahayd oo marka dadka shisheeye oo Soomaal gashanaya ay uga faa'iideysan lahayd halka weeye meesha la rabo in la fahmo waxa dadka is haysta rag bay u shaqeeyaan oo dawladda ka maalgelinaya Soomaaliduna waxa weeye waa iska dad weyn ah weeye oo marba ninka soo baxo oo xoogaa yar maanta laga heli karo ay Soomaaliya toosoy u qaadayaan u sabcinaya maxana inay iyagu yihiin dadka la dulmiyay oo shaqo la'aanta ay ku dhacday oo amaan darrada ay ku dhacday oo horumar la'aanta ay ku dhacday oo midnimo la'aanta ay ku dhacday inay iyagu yihiin isma oga iyaguna waxa weeye hogaankii ka horeeyay baa sidaa yeelay wiilka 30 jirka ah ee maanta 30 sano jira ee dhashay 19 dhashay muxuu dowladnimo ku fursadda uu helay inuu wax ku barto yaa siiyay
shaqo inuu helo oo sharafkiisa uu ku dhowrto yaa siiyey maba la siinba marka haddii uu wiilkaasu ka qayb noqdo xasiloon la'aanta ka qayb noqdo oo dagaalka iyo burburka uu ka qayb noqdo eedda isagaa leh mise hoggaankiisii baa leh wiilka adigu aad dhashay haddaad barbaarin weydo oo akhlaaqda iska shaqayn weydo oo ilaahay ku xiri weydo hadda wuxuu sameeyo ma wiilka leh sababta mise waalidkaa leh marka anigu waxaan qabaa waxa weeye labada dhinacba eed badan bay leeyihiin shacabigii oo dhoohan oo dhaga waaweyn oo iska daawanaya waxa dhacaya oo aan dareemayn inay wax ka maqan yihiinba oo dhaawaca ayaa haddana waxaa dhinaca kala jooga hoggaan marsanada calooshiisa u shaqaysanaya oo doonaya xoogaaga yaroo meesha yaalla inuu barba dibadda wax geysto oo caruurtiisuna ay ku noolaadaan dibadaha oo tacliin fiican u helaan oo caafimaad fiican u helaan lacaga shisheeyana maalin loo soo dhacayaan oo jeeba ka buxsanaya ayuu wuxuu moodaya sharaf moodaya oo Soomaaliya soo loo qaadaya marka waxa weeye dhibaato oo waxaan haysta ballaaran oo aad iyo aad complicated u ah oo la rabo in la fahmo oo waxgaradku ay u istaagaan culimada ay u istaagaan oo inta Soomaalinimada ay ku jirto danqanaya inay dareemaan inaan sidaa lagu sii socon karin waxa weeye Soomaaliya waxay ku socotaa dariiq ay ku dhamaanayso oo la oranayo markaas Soomaaliya waa dhamaatay hadda waxa la fail state waa qaran dumay oo aan haysan weeye laakiin qaran qolobo badan waxa jira wadamo badan oo jiray xoog lahaan jiray oo maanta maarka ka baxay marka wadanka kan kheyraadka badan leh badda India Ocean ilaahay kaga yaalaan oo waxaasoo kheyraad ilaahay siiyay oo dhul iyo bad ka siiyay iyo biriba haddayna wariba damcaya maanta 60kii meeshaan joognay maanta haddaad eegto farqi weyn baa u dhaxeeya dariiqi marka waxaan ku soconnaa burburka iyo baabaan ku soconnaa waxa istaajin kara waxa weeye ilaahay oo loo noqdo kitaabkiisii oo loo noqdo cadaalad halka laga raadiyo ummadda oo midowda oo danteeda garata oo tiraha inta kafa waan ugu filan tahay inta ka badan ma sii socon karo oo shacbigu uu kaco oo dhalinyaradu intay badda isku daadanaysa iyagoo inay garbaha isqabsadaan kalboosaasa jooga iyo kambaydhaba jooga iyo kalkismaayo jooga iyo kalgarowa jooga inay u midoobaan u istaagaan oo yiraahaan maya ninka hoggaanka shalay aan ku fashilmay oo weesadu ka jabtay ha iska noqdo hasbuliisa ku noqdaa toobad keeno kan hadda joogo weesadu ay ka jabtayna ha jooga isaguna oo hanaga haro waraynu istaagno oo qiyaado fiican iyo hoggaan wanaagsan oo nabadbaadiya aynu dooranno oo aynu ka baxano mugdiga iyo qabyaaladda iyo muxuu ahayd doohanaanta ayaa maanta u baahanay si aan u badbaadno wabillahi tawfiiq adoo soo kabaya Dr. Cabdiweli isla arinta Xaaji Maxamed Yaasiin aan weydiiyay sidee xalku noqon karaa oo dadka shacabka ah loogu soo celin karaa awoodoodii waxaan filayaa horta aad iyo aad baan labaad iyo saddexaad baa u mahadcelinaya Xaaji Maxamed waa runtii hal kalmo uu yiri oo soo refer gareynayay arrintan ka hadlay runtii anagu don't condone horta wax runtii lagu marin xumaynayo madaxdii hore oo lagu bahdilayo dhibaatooyinkii dhacay oo xamar ka dhacay dadkii la laayay oo loo tirinayo maamulku inuu laayay dhibaatooyinkii siyaasadeed waxaasoo dhan wax jiro oo runtii la qarin karo ma aha waa sida xaajigu uu sheegay balse aniga waxaa iga ahayd oo ujeedada keliya oo aan anigu diidanaha waxay tahay waxa arrinta jidda oo ama ciidanka oo very sensitive-ka inaan batrool la dhex dhigin oo aysan wixii jiro Soomaaliya markaas ka dhaqdhaqaaqayo la rabay in la mideeyo la abuurayay inay maaragtay qaabkaas ku kala tagin bay horta aniga iga ahayd laakiin waxa xaajiga sheegay runtii waa ku raacsanahay mana rabo inaan maaragtay runtii aan cadayn maaragtay xurmo inay leeyihiin madaxdii hore ama madaxweynaha mid araahad inba haddaan u soo noqdo maxaa xal noqon kara runtii wuu tilmaamay ma filaya Xaaji Maxamed Yaasiin wax badan buuna ka hadlay waxaan aaminsanahay oo meesha jidda waxa weeye Soomaaliya marxaladan waxaad moodaa mar walba kala guur transitional baad moodaa awal aynu ku jirnay oo la marayay
iyo roolkii socday oo ahaa qori u dhiibka runtii waxaad moodaa in dadkaan ku socdeen ilaa cabdiqaasim ilaa yoomana haada xilligaas waxaad moodaa marka rajadii la qabay oo laga raadinayay madaxweyne farmaajo xilligii maaragtay waqtigiisu dhammaaday baa runtii laga filayay in maaragtay qori usluubku siduu ahaa uu dhaco runtii shaagaasi waa iska soo soconayay wax fara badan oo mugdi ana ummadda waa uga jidhay maamuladii balse waxaad moodaa wax lalahaa meelaha lagu gaaray inay hawshaas u ahayd waxaana muuqata meeshii la islaa waxaa lagu baxo maanta runtii inay yeelatay wejiyo fara badan waa ka duwan tahaad moodaa maanta doorashada wixii hore dhici jiray ha ahaata doorasho dadban laakiin saamaynta ay ku leedahay ama adduunweynaha ha ahaato ama wadamadan dariska ha ahaato ama international community ha ahaato ama soomaalida ha ahaato iyo aafaynta fara badan oo uu keenay xataa dhaqankii soomaaliya qaabkii loo soo saari lahaa dadka waxaa la filayaa inay maanta bar ka yihiin sida wax ku soo baxayaan oo ay ugu weynahay dhaqaale dadka la filaya candidate-ka oo madaxda ah ama kuwa hore jiray ha ahaadeen ama kuwa hadda jooga ha ahaadeen oo la filaya inay adeegsan karaan dhaqaale fara badan oo sources fara badan ka yimaada ama wadamo dibadda ka yimaada ama siyaasad ay ku isticmaali karaan qaabo fara badan oo kale waynu la soconnaa barnaamijkaanu salka goortuu dhigay waxay ahayd xilligii maamul goboleedyadu shirarkoodu socdeen ba waxaad moodaa waxaa ka dhadhami kara waxa soomaaliya maanta ka socda oo ah inay dhacdo alaayis gooni ah oo hadda arrimahan laga hadlaayo waxaasoo dhan waxaad moodaa waxayse soo tariyay inay ahaayeen iyo qolooyin kale ayagana laleeyahay gaar bay u dhahay marka waxaad moodaa falsafad ahaan dadkan waxaad moodaa arrintii hore inay qayb ka yihiin in lagu eedeeyo soomaaliya wixii maanta ku xumaada ama maamul goboleed ha ahaato ama madaxdan hajida ha ahaato baan anigu aaminsanahay inay qayb ka yihiin waxaa keliyasa looga bixi karaa oo wanaag lagu heli karaa in ay isku dayaan maanta inay tanasul suubiyaan oo kollay waqti ma harinoo hadda waa noo jeednaayo waa laysku haysta hadda arrimahan jireen war habraaci saxda ah in lagu dhaqmo waxaana ka baqaya in arrintaanu ay keento dhibaato hor le doorashada la dooranayo embiyadan qaabkan hadda ay ku socdaan oo la filayo waxyaabo fara badan oo gacantogaalayna iyo ninjeclaysi iyo tooxsiga dhaqaala waxaas inay ku jiraan ilaahay waxaan uga rajaynayaa ummadda soomaaliyeed khayr ilaahay maaragtay ku beego dhibaatadaana in ilaahay ka suudiyo kolle sida aan u jeedo weji hadda muuqda ma jiraan khayr iyo barako aad baad mahadsantihiin xaaji maxamed yaasiin iyo dr cabdiweli maxamed guray maxamuud guray dabcan intaan ku kulmi doono barnaamijka dambe nabadgelyo kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Siciid Dani oo bilaabay dhoolatus uu ku sameynayo ciidanka BSF xilli uu diyaarsaday ciidamo fara badan oo weerar lahaa xarunta BSF Puntland ciidamadii ugu badnaa oo maanta u goostay dhanka Siciid Dani iyo BSF oo gabi ahaanba la kala furfuray xaalad kacsanaan oo ka taagan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyo odayaashii dhaqanka oo faraha ka taagtay dhexdhexaadintii ay ka dhex wadeen Dani iyo sidoo kale BSF iyo wararkii ugu dambeeyay si guud xaaladda Puntland iyo barnaamijyo waaweyn oo ka dhici raba gudaha magaaladaasi Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegaynaa warkeena balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku bilaabnay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa bilaabay dhoolatus uu sameynayo xilli khilaaf weyn uu kala dhaxeeyo saraakiisha hogaamisa ciidanka BSF Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan booqasho ku tagay xerada ciidamada booliiska si gaar ah taliska guud ee ciidanka booliiska Puntland isagoo kormeeray qaybaha kala duwan ee booliiska iyo sidoo kale xarunta CID da Puntland ku taala iyo xitaa hay'adaha garsoorka ee maamulkaasi Siciid Dani ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa booliiska ee Puntland kuwaas oo xarumahooda ku booqday sidoo kale Siciid Dani ayaa amar ku bixiyay in ciidamada booliiska ay qaadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ahaan deegaanada Puntland si gaar ah Garowe iyo Boosaaso
Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale u sheegay in ay bilaabaan ciidamada booliiska qaqabashada dadka wata qoryaha ee aan sharciyada haysan iyo sidoo kale kuwa taageersan BSF oo ay howlgallo ka bilaabaan xaafad walba oo ka tirsan Boosaaso iyo sidoo kale magaalada Garowe oo dad taageersan BSF ay ku nool yihiin. dhoolatuska uu sameeyey Siciid Cabdullaahi Dani ayaa muujinayay in uu heeso cudud ciidan oo uu ku maqoonin karo ciidanka BSF Puntland si uu gacanta ugu dhigo hay-adan ka tirsan laamaha amniga ee Puntland oo ka madax bannaan balse Mareykanku uu taageero siiyo. Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale wada qorshe weyn oo uu ku doonayo in ciidamadan BSF uu gebi ahaan uga saaro magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. saacadihii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa gashay jahwareer iyo qalqal amni oo weyn waxaa sii xoogeysanaya barakaca dadka shacabka ay sameynayaan sidoo kale ganacsatada ku dhaqan magaaladaas ayaa saacadihii ugu dambeeyay ka dadguriyay Boosaaso ganacsigooda ugu muhiimsan ee keedka u ah yaalla magaaladaasi maadaama laga cabsi qabo in Boosaaso dagaal ku dhex maro Siciid Dani ciidamo wato iyo sidoo kale ciidanka BSF oo ina Diyaana uu hogaaminayo. sidoo kale magaalada Boosaaso waxaa difaaciil isugu jira meelo aan kala fogeyn oo ciidanku ay isu muuqanayaan taas oo ku muujinaysa in xilli kasta dagaal ka qarxi karo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. sidoo kale dadka wax falanqeeya ayaa waxa ay qabaan in Siciid Cabdullaahi Dani uu yahay keligii taliye aan nixin isla markaana diidan xalka iyo maanta wadamadayaasha dhaqanka ee maamulkaasi wuxuuna go'aankiisa ugu dambeeyay uu yahay in dagaal lagu qaado ciidanka BSF taas oo mar kale murjin karta xaaladda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Siciid Cabdullaahi Dani ayaa farmaajo ku eedeynayay in tallaabo kasta uu qaaday tahay ciidan wuxuuna ku eedeynayay keligii talisnimo balse hadda isaga ayaa bilaabay oo keligii taliye ah wuxuuna sameynayaa wax aan loo dul qaadan karin oo dabarjab ku ah horumarkii dhaqaalaha Puntland. sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo la hadlay dhanka wararka. odayaasha ismadii waxgaradka Puntland ayaa si cad u sheegay in gacmaha ay ka taagteen colaadii ka taagneyd deegaanada Puntland gaar ahaan Boosaaso waxayna sheegeen in Dani xal uu waayay isla markaana xalka uu maciin bidayo waxaan ahayn xabad waxayna sheegeen in wax kasta oo ka dhaca Boosaaso dusha uu saaranayo Siciid Cabdullaahi Dani. ilaa 4,000 oo ciidan oo qaybaha kala duwan ee ciidamada Puntland ayaa la soo dhoobay xaafadaha kala duwan ee Boosaaso si gaar ah meel aan ka fogeyn xarunta ciidamada BSF Puntland ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso. xaafadda Rowda oo ka mid ah xaafadaha ugu waaweyn ee Boosaaso ayaa waxaa gebi ahaan bay noqotay mid haawanaysa kadib markii ay isaga barakaceen gebi ahaan dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa xilli ay soo fasaxtay cabsi weyn oo la xiriirta in korkooda lagu dul dagaalamo. dad badan oo shacab ahaa ayaa hadda ku dhibaataysan duleedka Boosaaso iyo sidoo kale magaalada Qardha mana jiro ilaa iyo hadda wax gurmad ah oo la gaarsiiyay shacabkaasi dhibaataysan oo iyagoo nabad ah deegaanadoodii laga soo barakiciyay. BSF iyo Siciid Dani ayaa isku heesa arrimo siyaasadeed balse ma eegayaan danta shacabka iyo ganacsiga magaaladaasi iyo marka weyn ee Boosaaso ay sameynayso. ujeedka Siciid Cabdullaahi Dani ee ugu weyn Boosaaso u weeraray ayaa lagu sheegay inay tahay inuu gacanta ku dhigo 16 kursi oo tala magaalada Boosaaso kuwaas oo uu doonayay in gacanta ku dhigo gebi ahaan waxaana la sheegay in Siciid Dani ilaa inta uu ka taqalusayo ciidanka BSF uusan gacanta ku dhigi karin 16 kursi ee tala Boosaaso waxaana la ogyahay in BSF doorashadii 2016 ee diiday musuqmaasuq iyo boob uu waday Cabduuli Gaas waana sababta keentay Siciid Dani markan uu qaado tallaabo ku cilaaminayo doorashada ka dhacaysa Boosaaso kuna hakinayo in gebi ahaanba Boosaaso doorasho ka dhacdo ilaa intay gacantiisa wada galayso guud ahaan magaaladaasi. Siciid Dani ayaa inta xilka uu ka hayay Puntland waxa lagu kalifay in mar uu u safrayay Boosaaso iyo Garowe inta u dhaxaysa oo diyaarad u raaco taas oo muujisay baaxadda amni darrada ka taagan Boosaaso iyo sida looga neceb yahay Siciid Dani oo sii xoogeystay nacaybka loo qabo maamulkiisa. waxaa hadda uu rabaa in awood uu ku maqooniyo shacabka ciidamada BSF iyo dadka taageersan ama ka soo horjeeda hanaanka Siciid Dani taasi oo mar kale muujinaysa in keligii taliye Siciid Dani uu yahay nin xanaaqsan oo ciil qaba doonayana in dhiig ku daadiyo magaalada Boosaaso isagoo u arkaya in xalka ugu haboon ee lagu wajin karo Boosaaso ay tahay in la soo afjaro ciidanka BSF dagaal lagu qaado magaaladaasi. dhinaca kale saacadihii ugu dambeeyay waxaa soconaysay kala furfurka iyo kala qoobka lagu sameeyay ciidanka BSF Puntland waxaana arrintan si weyn uga shaqeynayay Siciid Cabdullaahi Dani iyo kooxdiisa Aranjaan waxaana la sheegay in golihiisa wasiirada mid kasta oo amar ku bixiyay in ninka ku heybta ee ku jira BSF uu qabiil ahaan ugu wacdo. wasiirka maaliyadda wasiirka warfaafinta wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ayaa la sheegay inay la soo goosteen ilaa iyo
1,500 oo askari oo ka mid ahaa 3,000 ee ciidanka BSF-ta ah kuwaas oo qaab qabiil ahaana ay uga soo gooyeen dhanka Siciid Dani iyagoo soo wiciyay dhankooda oo Puntland ay gacanta u soo galiyeen tallaabadan uu qaaday Siciid Cabdullaahi Dani ayaa horseedi karta in dagaal uu qarxo maadaama BSF la kala jarayo ciidamadii isku xirnaa ee loo tababaray la dagaalanka al-shabaabna markan ay u muuqanayaan kuwa awoodooda ay si daciifayso maadaama siyaas ahaan loo kala furayo madaxtooyada Puntland ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa sidii loo kala furi lahaa ciidankan isku xiran ee BSF oo ay hoggaan ku hayaan reer Diyaano xaalka ayaa hadda mid aad u liita waxaana boosaaso ka taagan qalqali jahwareer weyn oo dhanka amniga xilli shacab fara badan ay quus ka muujinayaan deganaanshiyaha magaalada Boosaaso ciidanka BSF-ta ayaa dhankooda la sheegay inay la soo gooseen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada daraawiishta kuwa booliiska Puntland oo ku heyba reer Diyaano kuwaas oo mar kale muujinaysa ama mar kale cadeynaysa in Puntland ay wax la gashay marxalad qabaayil ah taas oo dib u dhigi karta horumarka maamulkan uu ku faanayay iyo magacii ahaa hooyada federaalka Soomaaliya oo markan u muuqan inuu noqonayo hooyada dagaalka Soomaaliya Puntland mandiqadan dhacda waqooyiga dalkan Soomaaliya haddii ay saan ku sii jirto waxa ay wax la gelaysaa marxalad maamul la'aana taas oo sababi karta in dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay si toos u fargeliso maamulka Puntland gabi ahaanna laga taqaluso Aranjan iyo Siciid Dani oo Puntland ka dhigay shirkad iyagoo ay leeyihiin oo sida ay doonaan ay ka yeeshaan Siciid Cabdullaahi Dani waxaa dul hoganaysa fadeexado waaweyn iyo dhaliilo dul hoganaysa maamulkiisa iyo hab maamulka uu wajahayo ciidamada iyo sidoo kale isbedelka joogtada ah uu ku sameynayo ciidamada kala duwan ee Puntland sida daraawiishta booliiska BMBF-ta iyo hadda BSF uu gacanta la soo galay Siciid Cabdullaahi Dani balse noqonaysa tii uu ku bixi lahaa oo xilka madaxweynimo loo qaadi lahaa banaanbaxyo waaweyn ayaana gilgilaya Boosaaso iyo deegaano kale oo Puntland kuwaasoo gabi ahaan looga soo horjeedo maamulka Siciid Cabdullaahi Dani guud ahaan dawladda dhiganta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo kulan dambe nabadgeliyo subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan jad waa subaxnimo isniina taariikhdu waxay ku beegantahay 6 bisha Diseembar sanadka 2022 idaacadeena subaxnimona saaxiibayaal qodobada aad ku daawo doontaan waxaa qayb ka noqon doona midowga musharaxiinta oo shaaciyay tallaabada koowaad ee qaadan doonaan mar haddii ay qaadaceen doorashada Soomaaliya maxaa ka jira in midowga musharaxiinta ay isku raaceen dhismaha ciidanka badbaado qaran iyo in la xoojiyo ciidamadaasi macluumaadkii ugu dambeeyay tallaabada ay qaadayeen midowga musharaxiinta ayaan idiin soo gudbin doonaa guddiga doorashada oo soo saaray qoonda haween oo beelaha Somaliland ay mahad guuleed oo halis weyn ku jira kursigiisa markale in la diido macluumaadkan waa idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare Roble oo soo saaray amar ka kooban 9 qodob oo ku saabsan maamulka doorashada Soomaaliya yuu saameyn doona 9 qodob iyo xogo ku saabsan arrintan ayaa qayb ka ah toogasho ayaa xalay mar kale ka dhacday Muqdisho amniga caasimadda oo sii xumaanaya xaaladii ugu dambeysay Muqdisho waa idiin soo gudbin doonaa jahwareer cusub ayaa ka bilowday doorashada Soomaaliya iyadoo culeys weyn la saaray kooxda farmaajo oo markani wajahaya fadeexadii ugu waaweyn ee boobka doorashada macluumaadkana waa idiin soo gudbin doonaa iyo Xuseen Caydiid oo ka shifay isbedelka ku dhacay ra-iisul wasaare Roble iyo meelaha isbedelkaas uu ka yimid qodobadan iyo kuwa kale ayaa idaacadeena subaxnimo aad ku daawo doontaan qayb ka noqon saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe inoo dhig gambareelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena saaxiibayaal soo dhawaada mar kale aan ku bilaabay ee midowga musharaxiinta ayaa u muuqanaya kuwa u dhaqaaqay jihada tallaabo military markan in la eego sida iska cad 2 maalmood oo xiriir kulamo ay ku yeesheen Muqdisho ayaa la sheegay in xubnaha midowga musharaxiinta jihada koowaad hadda xoogooda ay saarayaan ayaa waxa la soo sheegay in naqata badbaado qaran 2 oo ah ciidamo xoog leh in la dhiso kuwaasoo la rabo inay ilaaliyaan golaha la dhisi doono ee badbaadada qaranka isla mid ah doorashada ay qaban doonaan golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa cadeeyay mowqifkooda iyo tallaabooyinka u qorsheysan inay qaadaan xilli shirar xasaasi ah weli kaga soconaya Muqdisho shirkoodii shalay ay ku soo biireen khubaro waaweyn kuwaas oo la talin iyo weliba sidoo kale farsamooyin ku biirinayay shirka golaha wada tashiga qaran waa shirka xubnaha midowga
musharaxiinta oo shalay maalintiisii labaada ayaa waxaa ku biiray qubaro waaweyn uu ku jiro Cumar Cabdirashiid Cabdulaahi Cali Sanbalulshe oo dhanka awoodda military iyo weliba sidoo kale farsamo ciidanba kala shaqeynaya midowga musharaxiinta iyo Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo nin qabiir siyaasadeed oo asna la sheegay dhanka talada iyo weliba sidoo kale habka loo wajahayo kooxda farmaajo uu bixinayo. Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo shir jiraad qabtay kulankaasi kadib ayaa faahfaahiyay wuxuuna sheegay in goluhu uu qaadi doono tallaabada koowaad tallaabadaas oo noqon doonta mid awood military ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in inta ay wadaan dhismaha awoodda military ay hal fursad siin doonaan kooxda Ra'iisul Wasaare Roble haddii isbedel la yimaadaan. Go'aankan ayaa yimid kadib markii ay jirtay cabsi ay laga qabay hadalhayn midowga musharaxiinta ah in ay markan u dhaqaaqeen jihada la xiriirta awood military si lamid ah bishii Abriil markaas oo ay ciidamo xoog leh abaabuleen laguna dhex dagaalamay magaalada Muqdisho ciidankaas oo loogu magac daray Badbaado Qaran 2. Cabdiraxmaan waxa uu cadeeyay in goluhu uusan jirin degdeg iyo weliba gacan ka hadal oo hadda laga falcelinayo doorashada dalka, laakiin waxa uu sheegay in jihada weyn hadda u dhaqaaqeen ay tahay dhismaha ciidamo ayaga xoojiya ammaankooda oo ilaaliya. Sidoo kale waxa uu sheegay in fursadda doorashada ay sii yaraanayso. Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa sheegay in hadafka golaha midowga musharaxiinta uu yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay oo haatan doorashada socota ay tahay mid boob doorasho lagu qeexay oo loo bareeray, balse kasi fikirka u bareerida deganaanshaha jabi soo celinta dalka ayuu sheegay in mar walba ay ka fikireen ayna tahay midda mas-uuliyadda ayagu saaran. Waxaan dareensanahay in maalmaha anagana la eegayo oo fursado badan ayaa na horyaala, laakiin fursadana kubadda hadda waxaan siinay istiraatiijiyadda dhanka amniga iyo dhismaha ciidamada ayuu yiri Cabdiraxmaan. Ma aqbali karno mana marqaatina kama noqon karno baabka doorasho ee cad dalka ka soconaya. Cabdulaahi Cali Sanbalulshe ayaa lagu casuumay kaas oo sheegay inuu soo bandhigay istiraatiijiyad amni oo lagu wajihi karo kooxda farmaajo. Istiraatiijiyadda amni ayaana ugu weyn dib u soo celinta iyo dhismaha ciidankii Badbaado Qaran 2 in la xoojiyo. Sidoo kale haddii ciidamadaas la dhiso oo caasimadan ay soo galaan ayaa xubnaha midowga musharaxiinta dhinaca kale laga tusiyay inay qabsan karaan doorasho ama golo cid walba ay dhisan karaan maadaama awoodooda dhanka amniga la xaqiijiyay. Sidoo kale waxaa la sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u cadeeyeen xubnaha midowga musharaxiinta in waqtigan aysan diyaar u ahayn in dagaal la gala, laakiin qaab wada xaajood wada hadal lagu wajaho. Cabdiraxmaan Cabshakuur waxa uu yiri Soomaaliya hadda uma rabto dagaal, dhibaato iyo mushkilad ee ma rabno, waxa la rabaa waxay tahay in doorasho daahfuran la qabto. Kooxda farmaajina intaas waa laga laayahay ayuu yiri hadalkiisa. Wuxuu intaa ku daray waxaa laga yaabaa qaar in ay degdegsan yihiin oo ay rabaan in boob doorasho la sameeyo sidaan wax ku socdaan, laakiin sidaan waa diidnay bishii Abriil ayaan diidnay oo muddo kororsiga iska dhaafada inaan qaadanay. Golaha midowga musharaxiinta ayaa kol hore si cad kaga hor yimid hanaanka ay ku bilaabatay doorashooyinka dalka gaar ahaan golaha shacabka. Golaha ayaana sheegay inaan loo maamulo hanaankii saxda ahaa. Shirka midowga musharaxiinta ayaa maanta mar kale sii socon doona maalintii saddexaad ayuu noqon doonaa. Ila wareejin ku dhigay xubnaha mucaaradka ayaa janaalkeena sirta wararka u sheegay in maanta la filayo inay ku soo biraan saraakiil ciidan oo kale maadaama shalay Cabdulaahi Cali Sanbalulshe lagu casuumay oo keenay istiraatiijiyad amni. Maanta shirka waxay u badan tahay in 3 sarkaal lagu casuumi doono General Sheikh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde, General Saadiq John iyo weliba sidoo kale saraakiil kale oo ku jiro Goobaale iyo saraakiil kale oo ku jiro Sani Cabdullaahi iyo xubno badan oo ciidankii Badbaado Qaran ahaa ayaa lagu casuumay shirka kale ee dhacaya. Wagaaga maanta shirkaasi furmaya iyo mucaaradka haddii macluumaad aan ka helnase idaacadeena galabnimo ayaan kugu soo gudbin doonaa. Aan u gudbo warbixinadeena kale. Guddiga doorashada ayaa soo saaray qoondada haweenka ee beelaha Somaliland iyadoo Mahdi Guuleed uu ku gacan saaray. Guddiga maamulka doorashada ee xildhibaanada labada aqal ee Somaliland Seed ayaa asteeyay qoondada haweenka kuraasta golaha shacabka beelaha ka soo jeeda waqooyiga Somaliland. Warqad ka soo baxday guddiga doorashooyinka Somaliland oo ku saxiixayay madaxa qoondada haweenka Maxamed Shaafi ayaa waxaa lagu sheegay in Somaliland laga rabo kuraastooda 13 qof in dumar ah oo loo xiro kuraastooda si waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 iyo kii 27 May 2021 iyo kii 22 Agoosto 2021. Guddiga hirgelinta doorashooyinka kuraasta gobolada waqooyi ee Somaliland Seed waxay soo gudbin doonaan shaxda kuraasta haweenka ee la doonayo in beelaha jifooyinka lagu qoro.
sidaa aanu ogaanaysa janalkana sirta wararka ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guleed qadar ayaa wada qorsho meesha laga saaraya matalaada dhabta ee dumarka ee beelaha la siiyey kuraasta kaas oo uu ka carooday ra-iisul wasaaruhu ilaa iyo 13 kursi ayaa qasab laga dhigin aqalka hoose ee baarlamaanka Somaliland inay ka timaado mahdi guuleed ayaa inta badan awoodda beeshiisa gacanta ku haya ayaa aaminsan in kursiga gabar uu leeyahay aysan doonin beeshiisa in markale gabar ay soo saaraan beesha uu ka soo jeedo Ciise Gaale la yiraahdo ee Somaliland degta mahdi guuleed uu ka soo jeedo ayaa la sheegay in beeshiisa oo ilaa 4 kursi oo kale oo baarlamaanka kale uu diidan yahay mahdi guuleed in kursi haween la siiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka isaga oo madaxda sare ee gobolada waqooyi qaybka ayaa la sheegay in hadda galaan galweyn u galayo sidii arintani loo baajin lahaa laakiin markaan eegno shaxda ay soo saaray guddiga doorashada waxaa ugu horeeya cigalle habar yoonis habar owdal habar jeclo iyo weliba dhammaanba ilaa iyo 12 beelood oo kamida beelaha degan Somaliland ayaa laga rabaa 13 kursi tan oo ka dhigan in beeshiiba hal kursi laga rabo marka laga rabo hal beel oo 2 kursi bixin doonto oo dumarka xaggeeda inta kale laakiin min hal kursi ay u badnaan doonto inay ka soo muuqan doonaan haweenka gordon robleyan eegi doonaa oo sanad soo saaray 9 qodob laakiin taanan roble eeginse warbixinadani kala noo gudub toogasha ayaa xalay ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo amniga caasimadana si weyn looga baqayo iyadoo dilil qorsheysan iyo waliba weerar gaadma ah ay kordhayaan waayihii dambe xaaladda magaalada Muqdisho ay rag hubeysan xalay markale dil ka geystay Muqdisho xalay waxa isgoyska dabka lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda iyadoo kooxda dilka geystayna halkaas ay ka baxsan sidoo kale isla xalay waxa la dilay isgoyska Cali Kamiin meel u dhow masjidka Sheekh Cabdi nin dhalinyaro ah oo sandaqad goob yar oo ganacsi ku lahaa halkaas oo koox baskoolada ku hubeysan ay dhowr rasaas la dhaceen marxuumka la dilay waxa la sheegay ka hor inay u yimaadeen booliiska Soomaaliya oo ay wax ka ganacsi u dhaxmaray kadibna ay ka tageen kadibna dabligan hubeysan ayaa timid halkaas waxay ku dileen marxuumka xaafadda dilku ka dhacay waxa la yiraahdaa Cali Kamiin degmada warta nabadda iyo qayb ka taa dablida baskoolada ku hubeysan ayaa dhowr xabo oo la dhacay ninkan ganacsada ahaa kadibna halkaas ayuu ku baxay oo ma jirin cid soo qaabtay gacan ku dhiglayaasha al-shabaab yaase inta badan warada noocan oo kala ka fulisan magaalada Muqdisho habeenkii saddexaad ee caasimadda ka jira mashquul daran dilal bareera ee caasimadda ay ka dhacayaan laamaha ammaanka ilaa hadda maysan ku guuleysan soo qabashada dablida baskoolada wax ku dila laamaha ammaanka ayaa lagu dhaliilayaa inay ka gaabiyeen sugidda nabadgelyada caasimadda dalka ee Muqdisho iyadoo mas'uuliyadna ay ahayd in shacabka Soomaaliyeed si hagar la'aan loogu shaqeeyo oo la guto amniga hase yeeshee waa la dayacay oo waxa laga cabsi qabaa in qaraxyo kale ay dhacaan jawaarar xoog leh ayaa ku furmay doorashada Soomaaliya iyadoo culays weyn la saaray kooxda nabadii nolol bilowgii doorashada kuraasta aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka waxay ku socdeen sida ay rabtay kooxda nabadii nolol hase yeeshee isbuucii la soo dhaafay ayaa jawaarar xoog leh lagu faray kadib markii xubnaha midowga musharaxiintu ay dhaleeceeyeen oo ay qaadaceen natiijooyinka doorashada xafiiska Roble ayaa xalay waxa ka soo baxday sida iska muuqata wuxuu soo saaray digniino badan oo 9 qodob ka kooban oo loo diray dhinacyada kala duwan ee ku howlan doorashooyinka qoraalka Roble iyo digniintiisa ayaa la sheegay in dadka doorasho siyaasadda ay ku qeexeen mid lagu bartilmaameedsanayo kooxda farmaajo oo boob xoog leh ka geystay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo sidoo kale Baydhabo oo ay doorashada ka dhacday dadka doorasho siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya jahwareerkan cusub ee gashay doorashada Soomaaliya marka loo eego doorashada iyo sida go'aanada isdabajooga u soo baxayaan ay tahay midaan u fiicneen farmaajo iyo kooxda fariimaha u muuqda hanjabaada dadban ee beesha caalamka ay cabsigelin ku abuuri karta xukuumadda oo meesha ka saari karta marjaca doorashada xukuumadda markii hore ahaydba ayaa laga yaabaa kooxda farmaajo inay waayaan hankooda ah inay boobaan kuraas kale cusub in guddiga doorashada heer federaal ay diidaan kuraas la qabtay si sax ahaana kuraas lagu qabtay Dhuusamareeb ayaa waxay ka dhigan tahay cadaadiska beesha caalamka la iska dejinayo tan xubnaha
xubnaha mucaaradka. Rooble ayaana la sheegay inuu ku dhiiraday markan inuu abuuro jahwareer xoog leh oo ku saabsan kooxda farmaajo. guddiga doorashada heer dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa 2 toddobaad ka hor diiday war ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal, laakiin kii xalay way ku guuldareysteen inay diidaan. madaxweyne farmaajo iyo saaxiibadiisa nabad nolol ayaa wajahaya culayskii ugu weynaa, waxaase la ogaan karin waxa dhici doona iyadoo go'aan ka soo bixi kara waqtigadan ku soo aadan ee ku saabsan hanaanka doorashada. dib in loo celiyo sharci ahaanshaha kuraasta nabad iyo nolol ay ku xisaabtamayso ayaa waxay u muuqataa mid xargaha ay goosan karto hadiiba arrintan ay dhaqan gasho. laga yaabo kuraas kale oo villa Soomaaliya qaab xoog kusoo qaadato in mar kale doorashada dib loogu noqdo. muddo kordhintii farmaajo laga diiday ayaa si dadban hadda kusii socon karta sida ay qabaan dad badan oo darasaya. madaxweyne farmaajo ayaa sharciyadii waxay ka dhamaatay Febraayo sanadkan muddo xileedkiisa, balse xafiiska ayuu iska sii joogaa ilaa 9 bilood. 10 biloodkiisa ayay usii noqonaysaa marka loo eego. dhinaca kale jahwareerkan ay gashay ka soo korreeyay wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa la sheegay inuu ka batay cadaadiska xoog leh oo kala kulmay wakiilada beesha caalamka. cadaadiskaas ayaana la sheegay in keeni karta in farmaajihii kooxda ay lumiyeen kuraas badan. ra-iisul wasaaraha ayaa xalay soo saaray 9 qodob oo ku saabsan maamulka doorashada. 9kani qodob iyo nuxurkeeda waxaa soo koobaya afayeenka xukuumadda oo warbaahintu u akhriyay, asaga ayaana ugu dambeyn doona warkeena subax saaxiibayaal.